ku soo dhowaada xalqaddii afraad iyo casharkii ugu dambeeyey tababarkiinna ku saabsan ka ilaalinta ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka. Magacaygu waa Saalim. Magacaygu waa Xaliima. Casharkan waxaan kaga hadlaynaa soo sheegidda ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah. Adiga oo ah ku iskaa wax u qabso kula shaqeeya ama shaqaale ah, waxaa waajibaadkaaga ah inaad soo sheegto haddii aad aragto ama tuhunto habdhaqan waxyeelo leh, gaar ahaan ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah. Waxaan sidoo kale wax idinkaga sheegaynaa khayraadyada loogu talagalay dhibanayaasha iyo sida loogu caawiyo gudbinta. Waxaan kaga soo hadalnay waajibaadka soo sheegidda habdhaqannada waxyeelada leh xalaqadii labaad. Mabda'a aasaasiga ah ee lambarka 5 wuxuu kuu sheegayaa shaqaale arrimaha bini'aadanimada ka shaqeeya ahaan. Haddii aad ka shakido in qof ka tirsan hay'adaada ama hay'ad kale oo ka shaqaysa howlaha gargaarka inuu jebinayo xeerarka bini'aadanimada ee ku saabsan habdhaqanka galmada, in aad soo sheegto waa in aad raacdaa habraacyada u degsan hay'adaada. Waa in aad had iyo jeer la xiriirtaa cidda PSEA idin qaabilsan haddii aad aragto ama tuhunto ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah. Cidda qaabilsan PSEA ayaa awoodi doonta in ay ku siiso hagid gaar ah ama talo ku saabsan xaaladda. Iyada ama isaga waxay aqoonsigaaga had iyo jeer ka dhigi doonaan mid qarsoodi ah. Tani waxay ka wanaagsan tahay in aad sir ka dhigto oo aad halis geliso xilka aad hay'adaada ka hayso. Dhibanayaasha ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka waxaa jira adeegyo gaar ah oo ay heli karaan, sida daryeel caafimaad iyo mid nafsaani, daryeel maadi ah oo degdeg ah, iyo kaalmo sharci. Marka qof la soo faraxumeeyo, wuxuu u baahan yahay gargaar degdeg ah. Waxaa muhiim ah in hay'adda ay si dhaqso leh oo wax ku ool ah ay wax uga qabato xaaladaha noocaas ah. Waxaa door muhiim ah ka qaadan kartaa xaqiijinta in xaaladaha loo gudbiyo qofka saxda ah iyo in dadku ay helaan caawimaadda ay u baahan yihiin. Marka aad soo gudbiso dhibane, waxaa muhiim ah in aad xasuusnaato in ay argagaxsan tahay. Waa inaad fiiro gaara u yeelataa habka aad u hadasho una dhaqanto inta lagu guda jiro waqtigan xasaasiga ah. Ku dheh erayo laabta u qaboojinaya, laakiinse qofka ha taaban. Waxay noqon doonaan kuwo dareen aad iyo aad ah leh, iyada oo sabab u ah waxa ay soo mareen. Adigu laf ahaantaada ha isku dayin in aad xalliso dhibaatada. Qofka u sheeg in aad u gudbin doonto qof dhagaysan doona. Haddii ay doonayaan inay wax kaaga sheegaan xaaladooda, dhagayso, balse marnaba go'aan ha ka gaarin. Intii lagu guda jiray casharkii 3, waxaan ka hadalnay cawaaqibta ay dhibanayaasha kala kulmi karaan ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah. Waxaan sharaxnay in dadka ka soo badbaada xadgudubka galmada ay xitaa dhibaato badan kala kulmaan dayrinta ay bulshadu dayriso, ama in lagu ceebeeyo wixii ku dhacay. Xasuusnow in ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah ay tahay arrin aad iyo aad xasaasi u ah, waana in aad sir ama qarsoodi ka dhigtaa faahfaahinada qofka. Layla waa xubin ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay. Waxaa u socda furiin, waxayna waqti badan ku qaadataa xerooyinka iyada oo qayb ka ah shaqadeeda sarkaalka ilaalinta. Bari dhaweyd ayay waxay la saaxiibtay nin qaxooti ah oo lagu magacaabo Idris iyo walaashiisa ka yar. Aadam, waqti aan ku wada hadalno ma heli kartaa? Haa, dhib ma lahan. Waxaan hadda dhammeeyey warbixin aan diyaarinayay. Bal ii sheeg, maxaa jira? Waxaan run ahaantii u baahanahay in aan laabtayda ka saaro wax aan muddo dheer ku hayay. Waan ku faraxsanahay inaan dhagaysto. Waa maxay? Hagaag. Idris ma taqaanaa? Wuxuu barbaariyaa oo uu hayaa walaashiisa ka yar ee Salma
iyadoo sabab u ah in waalidiintooda la dilay. Waa nin naxariis badan, wuxuuna in badan caawiyaa bulshada. Waa nin aqoon-yahan ah oo ka qayb qaata inta badan kulannada bulshada. Sidaa daraaddeed xoogaa ayaan isbarannay. Marmar ayaan la hadlaa marka aan samaynayo booqashooyinka reeraha ee deegaanka. Maalin dhoweyd aad baan u xanaaqay iyadoo sabab u ah arrimaha noloshayda ee gaarka ah. Wuxuu i arkay aniga oo ku oynaya meel dambe oo ah goobta u wanaagsan haweenka. Idris ayaa ii yimid wuxuuna i weydiiyey waxa jira, iyo haddii aan shaah rabo. Waxaan u baahanahay in aan kaala hadlo wixii markaa kadib dhacay. Waxaan isla qaadanay xoogaa waqti ah. Waxaan dareemay dhib la'aan, gaar ahaan maadaama uu yahay qof qaangaar ah. Waa nin aan xaas lahayn. Waan ogahay in aysan ahayn wax ay tahay in aan samayno. Waxaan doonayaa in aan iska iloowo oo aan horay u socdo. Layla, waad og tahay in ay tahay arrintan in aan ka warbixiyo. Waxay khatar gelin kartaa barnaamijkeenna. Waxaad ku waayi kartaa shaqadaada. Anigana sidoo kale waxaan hadda waayi karaa shaqadayda. Wuxuu adeegyo ka helayaa hay'ad. Sideed ku ogaan kartaa haddii uu u maleeyey in ay tahay in uu kula saaxiibo, iyadoo sabab u ah cidda aad u shaqaysa awgeed? Fadlan, ka fikir oo keliya. Idris ayaa ballan qaaday in uusan cidna u sheegayn. Mar dambena lama hadli doono isaga ama Salma. Haddii ay sidaa tahay waxa aad doonayso. Aadam wuxuu go'aansaday in uu keliya u sheego cidda hay'adda u qaabilsan PSEA. Inkasta oo Aadam kulan la yeeshay agaasimaha dalka maalintii xigtay, Aadam uma sheegin qirashada ay Layla qiratay. Shaqaale arrimaha bani'aadannimada ka shaqeeya ahaan, Layla waxaa laga filayay in ay u hoggaansanaato mabaadi'da aasaasiga ah ee PSEA. Mabaadi'da ayaa inoo sheega in aysan xiriir galmo la yeelan qof kasta oo ay saameeyeen xaaladaha degdegga ah ee bani'aadannimada. Layla waxay leedahay awood iyadoo sabab u ah shaqadeeda. Maxaa yeelay Idris wuxuu qaataa gargaar bani'aadannimo. Xiriirkoodana waa mid aanan habboonayn. Salim, ma u malaynaysaa in iyadoo sabab u ah in Layla ay dumar tahay, Idrisna uu nin yahay, intaasi haba yaraatee ay wax ka beddelayso diinaamiyaadka awoodda? Waxaan u malaynayaa xadgudubka galmo arrinta ugu muhiimsan in laga fikiro xaaladdan inay tahay xilka Layla sida shaqaale arrimaha gargaarka ka shaqeeya ahaan ee ma aha lab dhadigeeda. Waxay sidoo kale tusaale xun u tahay dadka kale ee bulshada, xitaa haddii Idris uusan dareemin ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka in lagu sameeyey, waa qof ay dhibaato saameysay oo caawimaad u baahan. Tani ayaa waxaa laga yaabaa inay saameysay go'aankiisa ee uu xiriirka kula yeeshay Layla. Haddii aysan jirin cawaaqib ay ka soo gaarayso Layla, maxaa dhacaya haddii dadka kale ee bulshada Idris ay maqlaan kulankooda? Waxay u malayn karaan in haddii ay la galmoodaan shaqaalaha bani'aadannimada in ay heli karaan gargaar badan. Waxay khatar gelin kartaa dad badan oo nugul. Waa sax. Aadam, maamulaha Layla ma sameeyey waxa saxda ah marka uu keliya u sheegay waxa dhacay cidda u qaabilsan PSEA. Maxay kula tahay? Maxaa ku dhacaya Layla? Waxaynu hadda soo gaarnay dhammaadka casharkeenna ugu dambeeya. Salim iyo anigaba waxaan jeclaan lahayn inaan idinkaaga mahadnaqno barashada aad wax nala barateen 4 cashar ee la soo dhaafay. Waxaan rajaynaynaa inaad hadda si fiican u taqaaniin 6 mabda' ee aasaasiga ah ee ka ilaalinta ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka. Waxaan sidoo kale rajaynaynaa inaad si fiican uga warqabtaan waxa la sameeyo marka aad aragto ama tuhunto ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah. Ha iloowin, haddii aad wax aragto, wax sheeg. Waxaan dhammaan mas'uul ka nahay
ilaalinta dadka ay dhibaatadu saamaysay, hubinta in dhibanayaasha ka faa'iidaysiga galmada iyo xadgudubka ah loo gudbiyo adeegyada ku habboon, iyo in lala xisaabtamo shakhsiyaadka iyo hay'adaha. fadlan la xiriir cidda hay'adaada u qaabilsan PSEA oo kala hadal maamulahaaga haddii aad qabto su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan tababarkan. Mahadsanidin, sidaas iyo nabadgelyo. Maca salaamo.